ثانية يا again أنيقو نخو وركا خربري ودور كوروناي مال معان مقالة مقدشو جيرديد قشت لوخيد مرتس بيبتديد فديستد يا ماشي سانتا اتقيست توك توك اترعدت عاسي رعدت كدلتد عاسي رعدت كدلتد تاكسي رعدت سد على هريفة اسكيم ان انا ترى كر شاهدن قوح السياسة واكعسن تهي وحد مخليسة وحال حبيلي حال هذا دهبشيل مالك حبيلي هادنا كوكلا وحال ديبي waxaa leedahay turkiga ma wax dhiibo intee aboo diilaad wax kala isku sheega koowa ku dhaa waxa la karosi waxaa leedahay ciyaartii xalimiya koowa isku dhaa waxa la baasi siyaasadda xanuuna ku dhacay marka ila fool ku taala ilhe afool ku taala warkaana waxaa noo soo diyaari oo noo soo deeha oo soo duuduubi ya abo أبها كسو دواو reer cinda nagu soo taagayaal waxaan ii sheegaynaa barnaamijka faaliyaha dhexdiisa qodobka idinkugu sheegaya waxa waaye dowladda jamhuuriyadda soomaaliya waxaan ognahay ummadda soomaaliyeed waxa waaye ummad isjecel ninkii cijji gaarta ama ninkii suul gaar ama ninkii oo candhuuf ku tufmato waxay jecelyiin isku si inay u xanuunsadaan mar walbana shacabka soomaaliyeed iyo dowladda oo iswataan waxay ka xanuunsadaan muwaadinka soomaaliyeed cufk isjiidadkiisa 6 mitir bir second kuyubig wajacalool as yahay muwaadinkaas inas dhibaata as ku arkin soomaaliya gudaheeda iyo caalamka oo dhan inas dhib ku arkin shacabka iyo dowladda har iyo haween ay ka shaqay jireen hase ahaatee social mediaha waxaa buux dhaafi jiray oo comment iyo like iyo share 24 saac shacabka soomaaliyeed ay ku soo diri jireen facebook yada bilyan malaayiin comment iyo share iyo like oo malaayiin ahay dowladda sumcadeeda iyo waxqabadkeeda ay ku sheegi jireen laakiin isbuucan hadda la soo dhaafi wixii leeg ahay iyo wixii share ahay iyo comment dhammaan social media macal facebook ilaa youtube waa lagala naqdi shir iyo leg yaraantaas oo social mediana waxaa keeni horta madaxweynaheena sharafta leh mudana farmaajo iyo ra'iisul wasaaraheena khayre dad shaafta yaqaana ma iyo maqas iyo huuy ma yaqaanin waa dad leh wadaniyaal oo daacad laakiinse dad kale ma laga waanayo oo ku dhex jiro oo shaaftada iyo maxasaay maqasta aad u yaqaano oo sakiin toobaas wato malaay saafidka aad u sasari yaqaano taasna waxaa aan ka wadaa mudana qalbi dhagax oo ka tirsan jabhadda ONF oo dowladda gacanta u gelisay ee waddanka Itoobiya qalbi dhagax waxaas ku sugnaay gobolka mudug hase ahaatee u soo isdhahooyo waddankaaga joogta ummadaada ku dhex jirta shaafta ku maqastiiba abu afduub dhakab lagu sii waxa las arkiba waaga hadisku bari u soo Itoobiya dhex joog u soo dhan waa yaabi adduunka ilaahay waxa uu xun nabar ad fileeni inaa mindi joq lagugu siiyo arrintaasna dowladda xagga shacabka markii la dhaho waxay waayeen commenti iyo like iyo sharekii mas'uul walba dowladda lagu ammaani jiray arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu ONF yahay ee dowladdu wareejisay sida la socotaan ba arrinkaas waa arrin xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo golaha shacabka haddii aan fiirino maxay ka qabaa arrintaas oo fikire war dhammaantoodan ku dharka xataa inay iska jajeexaan wax yara u dhimnay indhahooda waxaa dhehaysaa daaf maa ku dhacay dadkan sis u gadgaduuti ma malee kartid ee uu carroodeen hadallada xildhibaanadana waxaa ka mid ahaay waa nasiib darro inay dhacdo arrintaasi waana shoogsannahay annagu hadda waxaanu ku jiraa muxuu ahaa waa rumaysnaan waxaan rumaysan weynay weeye dee anigu waa khatar baanba ku jiraa haddii la dhiibay ninkaas annagana waana la dhiibahayaa berri dadkeeda dalkao dhan waa la dhiibahayaa marka
waxaanu u dhiganay iyo waxaan sugaynayna maaha dowlad aanu taageeray ku taageeray wadaniyad ku taageeray daacadnimo ku taageeray muxuu ahaa inay qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed u shaqaynayso midaynayso bay ahayd cidda falka ay iska soo saareen cidda falkaan gashay shacabka kalsooni weyn ay ku qabaan dowladana ma wada xumo laakiin dad waxaa jira oo dowladda ka faa'iideysanaya taasna waxay keentay sheerkii iyo commentigii shacabka ay ka bixi jireen waxqabadka dowladda inay dib ula noqdaan isbuuca soo socdana waxaa loogu fadhiyaa isla dowladda commentigii iyo sheerkii iyo laygii inay dib u soo celiyaan maadaama wax kasta hadda oo dadka ra'yigooda ku dhiibanaya asnaqday online waxaan ka wadaa dowladda dhaliilaheed la sheegayaa laakiin haddii arrintan dowladda ay ka hadasha ama wax ka qabata waxaa laga yaabaa laygii iyo sheerkii ina soo noqdo faaliyaha qaranka Universal TV abaha Muqdisho qodobka labaad eegayaal wasaaradda ganacsiga Soomaaliya